anagu haddaan nahay capital city caasimadii wadanka gobolka Maroodi Sheekh way soo dhaweynaynaa ahlan wa sahlan gacmo furan soo dhaweynaynaa iyo wax aad u qurux badan soo dhawaada taasi waa taa inta kadib shirkana muhiimad buu leeyahay runtii kelmadii haddaan dhaahdo kelmadda emergency waxaad moodaa inay soo noqotay oo inagu farabadatay imikan maxaan ku raadayay ka hadlayay mar dhaweydo emergency markuu bateen intaasoo liis aan gudbinay intaasoo maxay aan gudbinay intaasoo iskuul haddana emergency ma dalbanaynaa marka runtii waxyaalaha ugu khatarta badan waxa kamid ah dhismayaasha iskuulada waxyaalaha la yaabay waxa kamid ah iskuul baa meel ku yaala guri qof leeyahay baa ku dhow aad ugu dhow tabayl baa imina soo roobaadaya iskuulkii uu qaadaya aqalkii ku xigay qof lahaa ma qaadayo waxyaalaha yaab kale aan hayno oo dhacay oo wax xaqiiqo ah marka arimahaasi ma marka hore dhismaha ma maxaan ku raahday mas'uuliyadda raatimid lama garan karayo waxa weeyaan anagu waxaan nahay gobolka ugu balaaran emergency-ga ugu baahida badan leh haddadan xalay iskuul cusub baa dumay xalay ugu dambeysay roobku deen weegii hore qaar baa dumay oo jingada ka qaaday marka runtii diyaar baan u nahay inaan la shaqeyno cidii wax ka qabanaysaba gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waana diyaarna waan u nahay annaguna intii taalka iyaga ah waanu qabanaa laakiin wixii naga xoog roonada kullay wasaaradda iyo waxaan kula noqonaynaa hay'adaha ku shaqada leh sida shirkan la idin sheegay waa emergency-ga waxaana soo agaasimay madaxda wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeyo agaasimaha guud waxaana aynu ka wada hadli doonaa muddada aynu wada joogno insha Allah bidmillaahi kariim iskuuladan soo noqnoqonaya ee dabaylaha iyo xaaladaha degdega ku sugan iyo idinka laftirkiina waxyaabo badan oo iskuulada jira ay mar walba la dhiso oo hadana soo noqnoqda inay dabayluhu ka qaadaan ama ay dumaan waxyaabahaas oo dhan waxa la doonayaa inaynu ka wada tashano oo shirku noqdo mid wax ku oolo wax ka soo baxaan waxaan idinka codsanaynaa maadaama madaxda wasaaradda waxbarashadu soo agaasintay shirkan oo agaasimaha guud ugu horeeyo inaad sidii ugu fiicnayd uga qayb qaadataan waxyaabaha la idinka doonayana aad nala wadaagtaan insha Allah bidmillaahi kariim waanu idin soo dhaweynaynaa Save the Children waa hay'ad wasaaradda garab oo la shaqeysa sida hay'adaha kale bahda waxbarashada ka shaqeeya ujeedadu waxa weeyaan duruufaha hadii jira la wadcigu keeno in hadba lala jaan qaado oo wixii yimaada laga tashado platformkaas maan u create gareynaa oo jaaniska siinaa in madaxda mataqaanay wasaaradda waxbarashadu meel kasto ay joogaan si yimaadaan ay ka qayb qaataan wada tashiga xaaladaha jira kana shirkana wuxuu ka qayb yahay wada tashigaasi way maadsayn madaxda suurta galisay inuu shirku inoo qabsoomo waxa weeye shirkan shirarka horeeyay far badan baa la qabtay oo kulay intii ka soo qayb gashay way joogaan ma filaya badidoodu wuxuu daaranaa in la eego xaaladaha kala duwan ee degdega ah ee soo noqnoqda qorshayaal laga sameeyo qorshahana la dhaqan geliyo waxaan jeclaan lahaa maanta gorfayntiina inay ka qayb ahaato qorshayaashii hore ee aad samayseen ee gobolada iyo degmooyinka aad u samayseen dhaqangelintiisii wixii ka qabsoomay laftarkeeda inaad dib u milicsataan kaliya ma ahan in kharash lagu bixin la isu yimaado oo la wada hadlo oo waliba kos iyo mataqaana waqti idinkan idinka qaadanaysa xaqiina ah marka waxaan jeclaan lahaa insha Allah idinkoo baahiya qaba oo kulli gobol kastaaba baahi gaar ah u qabo inay idinku gorfaysaan isla eegtaan abaarta marka laga yimaado waxyaabaha kale xaaladaha soo noqnoqdo iskuul baa duunsan baa maalmo la yiraahdaa oo shirka billaha laga dhex sheegaa mataqaanay mid bay dabayl jeegada ka qaaday marka haddii helin maxaa keenaya oo goboladu kala baranin oo caradii mataqaanay ciidoodii deegaankii la kala baranin oon tala la wadaagin waxaan filayaa waxa dambe waxay noqon doonaan biyo culaanshay sidii hore loo sheegay kulankeena wuxuu ku saabsan yahay xaaladaha degdega ama waxa emergency-ga loo yaqaano ee waxbarashada emergency-gu wuu badan yahay emergency-gu wuxuu ka bilaabmaa marka ay kabtu ka goodo waxaana uu ku dhamaadaa mooye dhibaatooyinka culculus lahayn kuma keene tirnaada dhacday waxba sidaa noqday duufaanna dhacay daadad baa dhacay waxyaabo badan oo
awood ilaahay ku yimaada awoodna inaan lahayn inaynu joojinno marxaladahaas iyo inta u dhaxaysa weeye ujeedada maanta aynu halkan isugu nimi haddii ay jiraan ama ilaahayna uma keenay meel ku dhacaan say doonanba ha u kala yaraadeene waxbarashadii waa inay socotaa canugii yaraa aynu waxbaraynay xaalad kasta oo lagu jiro waa inuu helaa isagu waxbarashadiisii sida ugu dhaqsaha badan taa ayaynu maanta ka shiraynaa taa ayaynu cashar ku qaadanaynaa haddii ilaahay ka dhiga dhowrka cishee soo socda horena casharo badan oo baxay way jiraan siminaaro badan oo halkan lagu qabtay way jiraan laakiin kan wuxuu kaga duwanaanayaa wuxuu noqonayaa itusoo taabsi waxa aynu halkan kala tagnaa waa inaanu noqonin kulamadii hore ama siminaaradii hore kale wuxuuna inta Hargeysa la iska yimi ama meel kale la iska yimi dadna la noqdo laakiin ay noqdaan on job training oo kale shaqo waaqiciya oo loo baahan yahay marka ay dhacdo in 1 2 3 saa loo qabto suduwayaasha gobolada ama gudoomiyaasha gobolada ee waxbarashada iyo degmooyinkaba iyo madaxda qorsheynta aan maleynay halkan marayaan dhammaantood waxaan jecel lahay in ay marka u dambaysa maalinta u dambaysa ee shirkan inoo xidhmayo ee seminaarkan aynu gabagabaynayno in aanay gaban ee ay gacanta taagaan oo ay su'aalaha weydiiyaan wixii aanay fahmin oo ay yiraahdaan waxa naga dhiman xitaa hadday kalifto maalin dheeraad oo kale ku sii daraynaa laakiin marra hadhowta la akhrisan maayo maanu fahamin ama sida maanu moodaynin waxaan rabnaa gobolada marka lagu noqdo iyo degmooyinka iskuulada waaqiciyan in looga shaqeeyo oo emergency markuu dhaco in qodobada ma aynu baran doono lagaga jawaabo waa sababta aynu maanta halkan u joogno sababta aynu inagoo daalan oo imtixaano ka soo baxnay oo taraga dheer soo galay aynu waqti u siin weynay aynu nasanno maanta halkan waxaan u joognaa disaster risk management emergency response aynu u baahanay inta inaga khusaysa ee waliba sectorka waxbarashada ah DRM-ka marka laga hadlayo dhammaan environment ku saameyn ku yeesha laakiin inaga mushkiladeena haysata ay ugu weyni saameyn intee leeg ku yeelanayaa dugsiyadeena ama goobaha waxbarashada isbedelkan socda cimilada hadday abaaraha noqoto iyo hadday noqoto wax kasta oo soo food saara wuxuu bay la tahay inaan dareeno oo markay roobto in la yiraahdo jiingad buu ka qaaday rooba jiingad iskuul ka qaaday iskuul baa dumay sidoo kale aynaan isweydiininba maxaa lagu yareyn karayaa khatartan muhiimadda ugu horeysa waxa weeye iskuulka intaan la dhisin waxa la sameeyo wax loo yaqaan feasibility analysis xogta la analyze gareynayo koo waxa ka ah shirkadda dhisaysa in la eego laba waxa ka ah quality-ga la dhisayo saddex waxa soo galaya design-ka dugsigu yeelanayo oo ah design-ka loo asteeyay dugsiyada waxbarashada loo dhiso waxa dhici karaya wada ku arki karaysa goobaha xeebaha ah inay jiraan iskuulo loo dhisay sidii iskuulada caadiga xeebuhu way ka duwan yihiin sida loo dhisay dugsiyadu way ka dhaaraadaan way ka deeqadoweynayaan si ay hawo fiican u helaan haddii kale waxay naga noqonaysaa dugsiyadeena inoo dhismaya ee sida guryaha loo dhisayo qaar sida guryaha loo dhisay arkaysaa oo hadna ardayda lagu xareynayo taa waxaan u baahanay marka intaan la bilaabin in xafiis kasta iyo gobol kasta oo waxbarashada ah shirkadda marka qandaraaska la siiyo ay ku guuleysato isku duwaha hawlaha guud ee gobolkaasi la jooga iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolkaasi la iska kaashadaan qaabka dugsigaasi noqonayo iyo materialka gelaya marka haddii aynu joogtaynta iyo adkaynta aynu wadno waxaan ugu yaraanaysaa in si fudud dhismihii nooga dumo dabeeyar baa soo dhacaysa waxa laga yaabaa dugsigana wuxuu u dumayaa loox dabeeleedkii lagu talagalay in lagaga xidho jiingada ayaan lagu xidhayn waxaa laga yaabaa biinankii ka soo xidhmayey looxa ee liitarka ku xidhmayey inaan lagu xidhin taasina waxay keenaysaa inay si fudud ay u dumaan waana inta badan waxyaabaha ay dhismayaashiina ku dumaan marka waxaad dareemi karaysaa dabagalkii iyo isxisaabtan la'aantii inay ku imanayso dayaca intaa leega waxaa kaloo aad iyo aad muhiim idinku ah inaad muujisaan kalsooni oo gudoomiye kasta oo waxbarasho gobolka joogo adaa dawladda uga mas'uula cid gobolka kaaga sareysa ma jirto mashruuc haddii la wado iyo haddii iskuul la dhisayo iyo haddii hay'ad fiirin qaybanaysa iyo haddii buuga la qaybanayaba marka koowaad waa in xafiiska gobolka la soo maraa waxaan isugu nimi maanta arrin aad u muhiim weeye inkastay ficnid malaa inay ka soo qaybgalayaashu ay intan ka bataan oo agasbuuxadeed iyo head sectionska iyo
ay cid waliba ka soo qayb gasho xitaa community-ga aynu ka soo qayb gelino laakiin waa mid ka mid ah meelaha inoogu daranay tahay inaynu xoog saarno disaster risk disaster iyo emergency waxyaabaha halista ah ee waxbarashada ku iman kara iyo markay xaalad degdeg timaado xaalad degdeg marka xagee ka iman kartaa waxaan idinka codsanayaa in ilaa hay'addu way noo facilitate garaysa halkan waxa yaabaa in presentation la inoogu sameeyo in discussion la inoogu sameeyo theory good oo la develop gareeyay in aynu ka cilmi qaadano laakiin waxaynu u baahanay mid aynu curinay oo localkeena maaragtay ku habboon emergency-gaasi wuxuu noqon karaa individual level qof ama qoys ama ku dhacay cid wuxuu noqon karaa mid school level ah oo iskuulka ku dhaco markay dabayl timaado tusaale uun haddaynu u soo qaadano maalin walba waxaynu aragnaa iskuulo jeegadil ay dabayl ka qaaday sidaynu xallinaa anu waxaan leeyahay wax loo kalo inuu curinay oo hay'adaha caalamiga ah ay naga taageerayaan iyo cid kale ina taageeri kartaa aynu inagu samaysano hay'adaha caalamiga nidaam bay u shaqeeyaan procedure bay leeyihiin marka emergency response kaasa la maraa 1 2 3 4 5 qofka halkan u joogay iyo hawlwadeennadu ma bedeli karaan oo iyagu go'aan iska gaadheen oo kale ma samayn karaan haddaba inagu sidee baynu inagoo teena ku soconaynaa sidee baynu u samaysanaynaa nidaam aynu kaga jawaabno